bal iigu soo celi inta si gaar ah ooga helay bal intaan daawadayaal aan la gaarin si gaar ah inaan u laba dhageysto live inaan ku daawado hadii hadhow meelaha laga soo marka walaalka qaar bay abaar dili qaar bay duruufuhu darbijiif ka dhigayaan dad iyo qabow dili waa dardaaran iga weyn qabiil dawlad noqon waa dalla noo matali waa dayrin waa abaartii waa dagaal sokeeyo lagu dili diraaci dalka noo matali la waa dardaaran iga weyn markiisi saddexaad dawladeennan joogtay qurba joogta dunida ay ganacsatada dalkaygo culimaa u diinkow duqaydeennan joogo dumarkiiyo dhallaankow da'yartaan u weynow sideen dalag ku beernaa waxay diintu caydiyo gaajo oola dirnaaban leeyahay. Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Soo laabasho wanaagsan barnaamijkeena labaad barnaamijkeena shalay qaybtiisa labaad ayaan maanta u fadhinaa aniga abwaanka isla joognaa qaxwaha anaga iyo shaaha anaga qacba ka soo siisanay ma fahanteen warastaghfirullah wa soomanay abaan soo dhawo mar kale oo ku faraxsanahay inaynu mar labaad isugu soo laabano barnaamijkeena isaga waa maxay faqrigu soo dhawo aad baad maasanta walaalkay waan dhawahay waan salaamay bulshada waa maalinteena labaad ee malaynaya aan ku kulano touch tube waraysiga anaga labaad ama ii sheeg ma taqaana isla barnaamijka anaga naga ku gudubna marka faqrigu waanu ka hadalay wixii ka dhimanna waanta aan isleenahay uu ka hadsan yahay falanqayn doonaa ilaahay maanta waan isla falanqayn doonaa booskaasna wadadana waan iska soo boosgareynaa waan soo xidhaynaa maanta insha Allah waa guddiga gabagabadii horta aynu sii bilowne shalayta waxay ugu dambeysay sunno weeye guurkuna siday diintu sunno weeye guurkuna jooyiga guursada ama sayfu maamulay su'aashaas runtii xalayta lafteeda waxaan is lahaa kolkaas bal fiidiyoga soo dhigto dadku su'aal noocee ah jawaab noocee ka bixin doonaan marka bal adiga aad kugu soo leexiyo aad ma guursatay ilaa xalay inta adiga maqnaydna noqotay damano mana qan gaadhay su'aasha ayada su'aashu kala suugay horta ma qan laftuun bay bootay oo ninka mana qan gaadhay ya hanu qan gaadhay horta ma dhageysatay horta muraayada horse kama sheerisay marka wallahi maadaama aan wali aanan ii sheeg ma taqaanaay aan ku dhex jiro meelihii halista badnayd hadda aan ka hadlaynay waxaan isla ma qan gaadhay maalin habeenka maalin markii ay xayisiin ay soo hoostay xagga duruuftaada ka qan gaadhay mis xagga taada ma qan gaadhay xagga joogtii xagga duruuftii ma qan gaadhay aad baa mahadsan tahay inta su'aasha kabtanka inta hadda kaga tagno shalayto su'aalo badan oo duruufaha iyo waayaha iyo waxyaabahaas ku saabsan ayaynu isla dhajeynay bal duruufta qofku maxaa la dhihi jiray waxyaabaha duruufta bido waynu aragnay liidashadeeda iyo xumideeda iyo dabeecadaha ay leedahay qalafsanaanteedana waa aragnay kolka qofku uu maxaa la dhihi jiray uu diyaar garoobay sida uga baxana wadada mari lahaa waad inoo sheegtay oo ilaahay cilmigeeda adigu faa'iidadeeda sabab nooga dhigay bal dadku sidee u arkaan qofka faqiirka ahaa ama danaysanaha ah dadku sidee oo la dhaqmaan abwan haddii aan in yar aan sii guda galo faqirnimada qofka waad og tahay qofka hadduu faqri yahay maxaa la dhihi jiray soomaalidu labada nin ee walaalaha kii lacag laba weyn ixtiraamka la siinayo kartida hadaleed kartida aqliga ka soo baxaya maskaxdiisa ama murtidiisu qofka hadduu faqri yahay xikmad ma laha miskiin qowl mar baa la yidhaahdaa marka qofka hadduu faqiir yahay oo faqiirnimadu uu ku gabanayo waxaanu kaga tegaynaa miskiin qowl ma laha hadduu sheego dee hebel yaaba dhegaysanaya nin faqri aad mu waxna weydiiyaa bay dadku lahaayeenoo laakiin ninba hadduu waxaysa lafteedu saamayn buu bulshada ku leeyahay oo waxaysashadu waa qayb aqliga ka mid ah waa qayb garaadka ka mid ah malaynaya waa run okay aad iyo aad xaqiiqatan way tahay oo Soomaaliba ma ka maamaado tiri labadii walaala ah kii lacag la waaweyn waanuna naqaanayo qofka aan hantiilaha ahayn madalaha iyo xataa hadduu fikirada ugu wanaagsan maskaxdiisa ku jiraan meel lama gaaro laakiin haddana faa'iidooyin badan oo leeyahay ayaan rajayn doonaa mar dambe inaan falanqayn doono haddii uusan qof faqiiri jiri lahayn dunida waxyaabo badan oo la abuuray iyo xikmado yaab la oo adduunku sameeyey lama heleen balse insha allahu tacaala maanta qaybta daranyada iyo habkay dadku u liidaan iyo duruuf caqabaadkeeda ka hadlaynaa taas haddii aan ka gudbo oo maxaa la dhihi jiraa intaan ku dhaafno bal xagga deegaankeena haddaynu u soo laabanno dhalinyaro kasta dal iyo deegaan bay leedahay bal deegaankeena sidee yahay isaga maxaa la dhihi jiray sidee baahi looga baahi bixi karaa maxaa sababay ina maxaa la dhihi jiray deegaanada kale muxuu kaga duwan yahay oo muu ka faqrisan yahay ma dhexdhexaadba muu ugu hooseeya muu ugu sarreeya sababaha maxaa la dhihi jiray dhalinyaradu inay iyagoo soddon jir aan waxba haysanin oo wax bartay la helo maxaa sababaha sababi karaad is leedahay
horta walaalkay waa su'aal aad u da'weyn su'aal ma aha si degdeg ah ama si fudud qof laga jawaabi karo uu kaga soo jawaabi karo oo ka soo tuujin karo hase yeeshee laakiin deegaankeenu markaan ku hadalno deegaamada uu ka duwan yahay haddii loo fiiriyo xagga banka ama xagga wadiyada haddii loo fiiriyo xagga macdanta iyo ama shidaalka iyo waxyaalaha la halmaama deegaankeenu aad buu weyn yahay abutinaga bulshada ku nool ama tirada ku nool ee bulshada way ka badan tahay deegaamo badan oo hadda aanu u malaynay in ay naga dhaqaale fiican yihiin ama nooga nolol fiican yihiin marka deegaankeenu haddii aan in yar oo taxaan aan ku yeesheego oo soo yoobiyo deegaankeenu wuxuu yahay afka kuma falanqayn karo oo dhammaantiin ma wada sheegi laakiin in yar oo yar taxaan haddaan saa ugu dulmaro deegaan barwaaqo dahabkii iyo shidaalkaba daadsan ay yihiinoo dunyadii iyo xoolaha dalagii iyo qaroorkii ugu daadshabaxayaan daa'im yuuna siiyo dalka nooga dhigay hodan taa waa daliilkii deegaankeenu wuxuu yahay intaasi waxay ku kooban yahay deegaankeena waxyaalaha uu gaarka u leeyahay waxyaabaha naturalka ilaahay uu nagu siiyay kamid tahay annagoo dalkaalan wixii haddana xaaladaas ilaahay waxyaalahan anagu kasbanaan si yar falaqaynaya inaga hoos noo dhigay annagoo dalkaalan gargaar dawlad suganaa cawska dayrtu bixisaan deegaamada ka baraynaa dadna noogu faantani waxaan ognahay xilliyada abaaraha ama xilliyada waqtiyada adag ee diraacda ay jirto ama abaarta ay jirto in ay dadku noogu deeqaan sabab waxay kuugu deeqday saariga caws ah mid uu beeray ma aha wuxuu ka soo raray waa cawska roobku bixiyo unbuu hoosta kaaga soo guray wuxuuna ku leeyahay ammaan buu ku yeelanayaa oromiya waxay kuugu deeqday 26 gaari ah marka deegaankaasi hadda deeq bixin baan bixiyey buu leeyahay cawska uu roobku bixiyey buu noogu faanayaa marka si intaa ku dhacdan cawska dayrta bixisay deegaan dadka noogu faanta bay ahayd marka si intaa u dhicin bal iigu soo celi inta waa saddex dardaaran oo ani ahaanteeda niyadeeda aan si gaar ah ooga helayba bal intaan daawadayaal aan la gaarin si gaar ah inaan u laba dhageysto live inaan ku daawado hadii hadhow meelaha laga soo waa iska cilmiyahay marka waa saddex dardaaran saddexda dardaaran bay ani iga weyn yihiin baan u maleeyay marka wax fikrad ahaantooda iyo xigmad ahaantooda waa saddex dardaaran oo iga weyn dardaaranka koobaad wuxuu dhahaa dadkina la walaalka qaar bay abaar dili qaar bay duruufuhu darbijiif ka dhigayaan dad iyo qabow dili waa dardaaran iga weyn qabiil dawlad noqon waa dalla noo matali waa dayrin waa abaartii waa dagaal sokeeyo lagu dili diraaci dalka noo matali la waa dardaaran iga weyn markiisii saddexaad dawladeennan joogtay qurba joogta dunida ganacsatada dalkaygo culimaa u diinkow duqaydeennan joogo dumarkiiyo dhallaankow da'yartaan u weynow sideen dalag ku beernaa waxay diintu caydiyo gaajo oola dirnaa baan leeyahay marka waanu ognahay dhammaanteen kooygan mar waa dhiirigelin marna waa su'aalo oo waa comment waxaa loo baahan yahay aanu kaga hadalna si aanu bulshadeena ugu baraarujino mar waa dhiirigelin oo waa inaanu isku tag samayno oo isku dirano oo ka dawladda iyo shacabka iyo ganacsiga ka dal ahaanba ka dibad ahaan iyo ka dhalinyar ahaan iyo ka shacab ahaanba aanu isku tagno sideen dalag ku beernaa waxay diintu caydiyo gaajo oo la dirinaabaa gadaal laga taala marka commentiga laftiisu waa noo muhiim haddii aanu ka helno halka yar maldahan baa ku jirta waxay diintu caydiyo waxaad moodaa waxa yar inuu ku qarsoon yahay bal insha Allah taala idinka laftiinuna bal sida aynu maxaa la dhihi jiray waxay diintu caydiya aynu waxa soo dhooga fogaan lahayn dalagana aan ku beeran lahayn dal iyo dibad qurba joog qaran joog iyo qolqol joogna dhalinyaro ganacsade maalqabeen shaqaale dawladeed dhammaan intaan gacmaha isu qabsano aan dalkeena hodanka ah aan hodan ooga dhigi lahayn insha Allah taala taana dhalinyarada ayaan commentiga u daynina إن شاء الله تعالى برنامج كنا قلت يا جوجبة أيوة تاجين هاي برنامج كيوم حفقير أنت سكويك هاي طيب كلا مرة كلا فلان غير دون واسرته إن شاء الله تعالى هذه أدنى ما يا رمى سنتين وحسجار وما هنقيا وراك أبو مرسمة أو برنامج كيلا خير قادنا هي كاميرمان كينا حسيرة أو نين سجنا حاجة عنت عجائبها كقباها يا أبو أنكو حاجة أفكار هذا السلة الجلي وحاول هذه أدنى ما سنتين كل تدم بخير له سلام الله عليكم